ayaa muhiima taas markaa ka gudba kadib sidaa ka warqabtaan dalku wuxuu ku jiraa xaalad hubanti la'aan amni ah hubanti la'aanta amniga uu dalka ku jiro waxaa kow ka ah halkii la rabay in istiraatiijiyad cad oo amni ah in la yimaado sidaad ka warqabtaan aad aragteen dalxiis iyo tamashleen iyo damaashaad ayay xukuumaddii aan ka sugaynin la imaato hal abuur oo amniga khawaarijta lagula dagaalami lahaa ayay waxay sameeyeen wasiiradii qoslaya iska damaashaadaya iska dalxiisaya xeebta liida arrintaas aad ay dareenkayga u taabatay qof walba oo Soomaaliyeedna dareenkiisa aad ay u taabatay run ahaantii arrintaas arrin xanuunkeeda leh waay ma lagu jiri karo baroor diiq oo igu sawir ah ma lagu jiri karo dalxiis iyo tamashleen oo igu sawir ah dalka wuxuu u baahan yahay istiraatiijiyad amni oo cad in la yimaado wasaaradii amniga la rabay inay ka shaqeyso amnigana dalxiiska iyo tamashleenta wasiirkoodii uu ku jiray sidaad ka aragteen xeebta liido waddanka waa ogtihiin dalkeenna dagaal ka dhana khawaarijta socdo baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo xildhibaanadu waa aragteen sharcigii la dagaalanka argagixisada baarlamaanadii hore way ku dhiiran waayeen baarlamaankii ku dhiirtay wuxuu ahaa baarlamaankan 11aad sharcigaas uu ansixiyay macnaha loo ansixiyay waxay ahayd in meel loogu soo wada jeesto in la dagaalamo khawaarijta laakiin sidaad u jeedaan mas'uuliyad xumo weyn meesha ka jirto annagana baarlamaankii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya daan nahay waxaan u taagannahay sidii aan ula xisaabtami lahayn kuna kor joogtayn lahayn hay'adda fulinta maadaama uu yahay waajibaadkanaga hay'addii ugu sarreysay dalkana uu yahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya taas markaan ka gudbo waajibkeennii waa wadanaynaa insha Allah mana joojinayno habeen iyo maalin waa u taagannahay inaan shacabka dareenkoodii aan la qaybsano taas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan aad u taageero garab istaagana istiidiyada qaarkood oo u soo jeestay inay la dagaalamaan ama burburiyaan isbaarooyinka sidaa ka warqabtaan isbaarada sideedaba isbaara marka lagu yiraahdo iyo marka la yiraahdo khawaarij waxay isdhaamaan male in leenin shacab hooyadii yaanyada gadiisay maskiinta ahayd oo soo shaqeysatay wadadii mareysay kan jidka u taagan inuu isbaara ka qaato rabo iyo kan khawaarijka ah oo banaanka taagan inuu dhiigooda daadiyo rabo waxay isdhaamaan male waxaan aad u taageerayaa maamulka koonfur galbeed oo ugu horeeyo Cabdicasiis Laftagareen wasiirka amniga Xasan Cabduqaadir hay'adihii kale amniga taliska booliska degmada iyo kan maamulka shaqada ay ka wadaan oo la dagaalanka isbaarooyinka ah sidoo kale waxaan ku boorinayaa inay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah khawaarijta dawladda federaalka Soomaaliya xukuumadana istiraatiijiyad cad inay la imaataa loo baahan yahay qof walba oo shaar dawladeed kula gambanaya isbaaradaasna qof walba oo Soomaaliya inuu meel ugu soo jeesto waajibna saaran waay arintaasna aad u adkeynaa waa maadsantiin xilwaanka Soomaaliya shacabka ayuu ku eedeeyay inay halkaas u taal isbaaro ma xaqeeji kartaa marka muskalaada sheen inay sax tahay horta sideedaba hadii xildhibaan aniga ma arkin xildhibaan ay u taar isbaaro laakiin xildhibaanada horta xildhibaano waxaa jiraan xildhibaan marka lagu yiraahdo waajibaad dastuuri leeyihiin xildhibaanka ka tilaabo waajibaadkiisa dastuuriga ama xildhibaanka sameeya kicin bulsho ama kicin qabiil aniga waxaan qabaa in xasaanada laga qaado sababtoo ah kicin qabiilba kan ku dhaqma waajibka uu qoran yahay waa xilwaayada xildhibaanka ka mid tahay xildhibaanka kiciyana guddoonku waxa uu sheegayaa in xasaanada laga laabo